السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan saxaabay beel kastood naga daawanaysaan. Barnaamijkii ugu horeeyay hadii alla idmo barnaamijyada aynu maanta idiin soo gudbin doono kamid noqon doona. Qodobada barnaamijkan idinku hayo waxaa kamid ah in ka badan 80 markab ayaa ka gudbay marinbiyoodka Hormuz kuwaasoo in ka badan kala bar ay dekadaha Iran tageen kana soo baxeen iyadoo Mareykankuna uu halkaa sheegay inuu cunaqabateyn ku hayo. Haddaba su'aalo badan ayay warbaahinta Mareykanku ka keeneen maraakiibta Iran iska tagta ee soo marta calanka Iran wadata tolow muxuu Mareykanku u qaban waayay. Haddaba tafaasiisha iyo cidda maraakiibta iska leh oo aanu ku dhicin Mareykanku inuu taabto wixii laga yiri ayaynu barnaamijka ku faahfaahin doonaa iyo guud ahaan xaaladda marinbiyoodka Hormuz sida uu yahay. mid ka mid shirkadaha diyaaradaha Mareykanka ee dadka rakaabka qaada ayaa sheegtay inay joojisay shaqadeedii kadib markii la sheegay saameyn weyn in dalka Mareykanka ay ku yeesheen shidaal la'aanta ka dhalatay marinbiyoodka Hormuz oo xiran iyadoo gaaskii shidaalka diyaaradaha ay markaa gadan la'yihiin. haddaba tafaasiil ku saabsan shirkadaasi iyo waxa ay tahay iyo shirkado kale oo laga cabsi qabo Yurub inay iyaguna shaqooyinkooda joojiyaan haddii uu sii socdo xirnaanshiyaha marinbiyoodka Hormuz. waxaa sidoo kale barnaamijka aan idinkugu hayaa oo aan idinkugu soo gudbin doonaa laba ka mid a basaasiin la shaqaynaysay hay-adda sirdoonka dibadda Israa'iil ayaa lagu dilay gudaha dalka Iran. warbixinadaas iyo dagaalka u dhaxeeya Xisbullah iyo Israa'iil halka uu marayo saakay ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. inta aan ku jirno asxaabay meel kastood naga daawanaysaan kusoo dhawaada barnaamijkeena ugu horeeya barnaamijyada aynu maanta idiin soo gudbin doono waa sabti taariikhduna waa 2 bisha May 2026. qodobo muhiim ah ayaynu barnaamijka ku faahfaahinaynaa. ugu horeyn waxaynu ku bilaabaynaa marinbiyoodka Hormuz xaaladiisu halka ay marayso iyadoo la sheegayo maraakiib tiro badan inay gudbeen tan iyo markii Mareykanka uu sheegay inuu xayiraad dhinaca dhaqaalaha ku soo rogay dekadaha Iran. haddaba warbaahinta Mareykanka ayaa u kuur gashay baaritaan samaysay hay-adaha la socodka maraakiibta caalamka meel kastoo markab marayo iyo xaalkii siduu yahay hay-adaha ka shaqeeya ayaa lala kaashaday. waxaa la soo helay xog la yaab leh. waxay yidhaahdeen 81 markab ayaa ka gudbay marinbiyoodka Hormuz intii Mareykanka uu yiri xayiraadaan saaray Iran. in ka badan kala bar maraakiibtaas waxay u socdeen ama ka soo socdeen dekadaha Iran. waxayna weliba wateen qaarkood inta badan calanka Iran. marka waxay leedahay yaa iskale maraakiibtaas. Mareykanku wuxuu noo sheegaa markab Iran leedahay inuu qabtay kan qabtay. haddaba marka tafaasiil badanaa la sii galay wax badanaa la sii baaray waxaa soo baxday inay hal qolo leedahay oo cid kale aanay noqon karin. in Shiinuhu leeyahay maraakiibtaas China oo maartay Iran galaysay ka soo baxaysay Mareykankuna aanu la hadli karin. horena loogu sheegay la yiri iska jir maraakiibteedaas ku taaban ganacsi ay gala dhaxaya Iran shaalkaasi waxaan meesha ka qaata. marka warbaahintii Mareykanku waxay taagan yihiin ninka Trump iyo kooxdiisu adduunkii iyo Mareykankiiba waa been u sheegayaan. cunaqabateyn buuxda oo Iran saaran ma jirteen. Iran intaasoo markaba iska socota. haddaba warbixintan la yaab kale waxaa qoray saakay telefishinka Al Jazeera iyadoo laga soo xiganayo warbaahinta Mareykanka iyadoo buuq fara badan Mareykanka uu ka taagan yahay. Al Jazeera waxay ciwaan uga dhigtay 81 markab ayaa jabiyay qaraarkii Trump ama go'aankii Trump. waxaana la sheegay in ay u muuqato arintani in lagu fashilmay xayiraadii Mareykanku ay saarayeen Hormuz. haddaba warbixinta marka way sii socotay halkan waxaa leeyahay bayaan la soo saaray oo laga soo xigtay shirkadda la yiraahdo Marine Traffic oo iyadu qaabilsan badaha iyo maraakiibta socota oo markaa warbaahinta Mareykanku ay soo qaateen warkeeda. waxay xaqiijiyeen in markaa 53 markab
ay khilaafeen go-aankii maraykanka ee marinbiyoodka hormus kuwaasoo la sheegay qaarkood inay ka yimaadeen unana socdeen dekadaha iiraan waxaana ay wateen weliba inta badan calanka iiraan ayay wateen 11 ka mid ah maraakiibtaas waxaa la sheegay weliba inay ku jireen liiska maraykanka uu horay cunaqabatayn maraakiib uu u saaray iyadoo lala xiriirinayo inay iiraan la shaqaysanayaan marka waa wax la yaab leh moogta sheekadan marka waxa waaye waa sheeko cajiiba waaye warbaahintii maraykanka marka waxay leeyihiin cunaqabatayntan macnaheeda maxay tahay iiraan saaran iiraan waxay leedahay waraa cunaqabataynta haddaadan iga qaadin iska jir isaguna wuxuu leeyahay wax kuu soo gudbaayo male xogtan aan haynana hadda oo la xaqiijiyeyna iiraan maraakiibaa iska tagta kana soo tagta wax ka soo qaada cid la hadashana male marka dad badan oo marka falanqeeyayaala oo arrinkan aad uga hadlayay oo aqoon-yahanaa waxay leeyihiin hal qolo unbay noqon kartaa keliya shiinaha oo horay ugu sheegay maraykanka inuu cilaaqo la leeyahay iiraan oo shidaalka iiraan iyo waxa kan iyo oo isagu markaa shirkadiisu ay ku jiraan marka maraykanku hadduu isku dayo inuu hor istaago shiinaha ganacsigiisana shiinaha iyo maraykankuna ay markaa adduunka oo dhan saas ay isugu ceyrsan doonaan marka Trump waxaa leeyahay adduunkana u booteeya maalin walba uu iska hadlaa kana sameeyna u dhahaa laakiin waxa hoos ka socda way ka duwan yihiin waxa kor ka socda leeyahay marka sheekadan sheeko cajiiba waaye oo marka hadda soo baxday sida la leeyahay waa sii soconaynaa arrinta marka saameynta intee leeg shirkadihii maraykanka diyaaradaha mid ka mid ah ayaa kacday way musallaftay dhaqaale la'aana ku dhacday sababtu waxay yiraahdeen dawladana caawiya nala weyn naga diiday waa shirkad ganacsi oo dadka rakaabka qaada inkastoo shirkadaha waaweyn aysan ahayn laakiin shirkadaha caadiga kuwa yaryar ah waa kacnay tiri sababtana waxa ugu wacanay tiri gaaskii lagu shubayay diyaaradaha oo qaaliyoobay hormus markii la xiray wixii oo dhan waa isbixin weynay dhaan dawladuna weyna caawin weys marka waxa leeyahay cabsida in shirkado kale ay kacaan oo ay musallafaan waxa ka mid ah shirkado badan oo Yurub laga leeyahay ayaa baqdin laga qaba oo waliba qaarkood shirkado waaweyn yihiin saameynta marka arrinka ay yeelanayso haddaba markaan idin soo wararkii ugu dambeeyay ee sheekada shirkadan musallaftay lagu qoray haddaba wakaalada wararka Associated Press ayaa goordhow qortay shirkada diyaaradaha maraykanka in marka ay u diyaar garoobayaan inay joojiyaan shaqadooda maanta inay joojiso shirkada diyaaradaha haddaba Associated Press waxa uu ka sheegayaa shirkadan diyaaradaha maraykanka ee la yiraahdo Spirit ayaa waxa la sheegay inay joojinayso shaqadii ay haysay kadib markii aanay helin taageero dhinaca xukuumadda ah haddaba shirkadan waxaa soo wajahay tallaabooyin khasaaro fara badan ayaa ku dhacay markii hore xaalkeedu ma fiicnayn hore ayaa khasaarooyin kale ay ula kulantay laakiin hadda waxaa la sheegayaa waxaa sare u kacay oo saameeyay shidaalka diyaaradaha sabab la xiriirta dagaalka Iiraan 17,000 oo shaqaale ah oo shirkada la shaqeynayay ayaa shaqo la'aan ku dhacaysa maanta oo fiirsada shirkadan markii horeba xoogaa tacbaan ahayd iska galab iskaga socotay laakiin hadda waxaa saameeyay leeyahay arrintan shidaalka kicistiisa diyaaradaha oo markaa ay musallaftay shirkadii Spirit la yiraahdaa waa shirkad maaragtay diyaaradaheedu dadka caadiga rakaabka ay raacaan oo dadka ganacsiga shirkad ganacsi waay 17,000 oo kamid ah marka shaqaalaheeda ayaa shaqo la'aan ku soo dhacaysa leeyahay xaalku marka halkaas u maraya marka waxa leeyahay Mareykan kaliya ma ahane Yurub iyo meelo badan hadii xaalku sidaa ku sii socdo
marka waa loo yaabaa shirkado badan inay iyaguna musallafi doonaan oo markaa dhibaato ay soo gaari doonto. waa ka gudbaynaa qodobkaas. dhanka kale iiraan waray soo saartay waxay sheegtay inay toogatay 2 ka mida dadka iiraaniyiinta ah ee la shaqaynayay hay-adda sirdoonka israa'iil ee dibadda u qaabilsan ee la yidhaahdo Mossad. haddaba markaan idin tusoo wararkii ugu dambeeyay Al-Jazeera waxay leedahay wakaaladda wararka ee Faris ee laga leeyahay dalka Iiraan ayaa sheegtay in la toogtay 2 qof kuwaasoo loo haysto inay u jaajuusayeen sirdoonka Israa'iil ee la yiraahdo Mossad. haddaba xukunkan ayaa waxaa la sheegay in la fuliyay dadkan. weliba waxaa la sheegayaa wararka qaar in daldalaad lagu dilay 2 qof oo la daldalay oo xataa aan xabad lagu dhufanin sida markaa warbixinta lagu hayo. dadkan marka waa la dilay, laakiin wararka qaar waxay sheegayaan in la daldalay xarig qoorta inta loogu xiray saas loo laalaadiyay. 2 qof marka waxaa la yiri waxay u shaqaynayeen hay-adda la yiraahdo Mossad oo ah sirdoonka dibadda. marka qodobka isaguna halkaas kaga gudbaynaa. waxaynu u gudbaynaa arrinta Lubnaan iyo Israa'iil. Xisbullah Israa'iil waa iskaraacayaan, dagaal aad u qaraar ayaa halkaa ka socdaa la leeyahay. haddaba waataan maalmahan ka hadlaynay diyaarad drona oo taangiyadii ugaarsatay oo eber ka dhigtay. taangiyadii Israa'iil ebra laga dhigay. diyaarad drona waxaa u timid nooc kale oo ay waxba ka qaban kari waayeen. waa tii shalay xataa aan halkan kusoo bandhignay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka Israa'iil inuu yiri haddeer la joogo xal uma hayno diyaaraddaas, iskama celin karno. askartay laynaysa, taangiyada laynaysa, marka meesha mushkilada ka jirta. haddaba marka waxay soo bandhigeen sawirro iyo video diyaarad 2 diyaaradood oo drone ah oo taangiye u tagay. midna waa sawiraysaa, midna waa garaacaysaa. taangiyadiioo saas loo ugaarsanayo ayay soo bandhigeen nimanka la yidhaahdo Xisbullah saakay. haddaba markaan idin tusoo wararkii ugu dambeeyey, Al-Jazeera waxay leedahay diyaarad drone oo wax gubaysa ayaa mid kale ayaa waxay bartilmaameedsadeen taangiga la yidhaahdo Merkava. taagtiig cusub oo la yaab leh ayaa ka socda Lubnaan. marka taangiyadii marka Israa'iil bannaankaba ma lagu arki karo. bannaanka haddii in la saaro Merkava waa ku da'ay. Merkava waa taangiyada ugu qatarsan caalamka, waa khatar. korkaasaa inta looga soo dhacaa nagta laga gelinayo. marka sheekadu marka aaday ugu xuntaa lee nimanka Israa'iiliyiinta xaalkoodu marka ma fiicna. marka qaybahan marka halkan ayaan ku joojinaynaa. waa wararkii ugu waaweynaa ee saakay saaran warbaahinta, gaar ahaan marka laga hadlayo arrimaha bariga dhexe. wararkii soo kordhay intaynu barnaamijka ku jirnay. haddaba qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka aynu maraynaa. qaybtan waxaynu kusoo qaadanaa akhbaaraadka soo dhacay intaanu barnaamijka ku jirnay. haddaba waxaa la sheegayaa in hay-adda laanqayrta cas ee caalamiga ah baaq ay soo saartay saakay ay ugu baaqayso dadka caalamka inay u diyaargaroobaan malaayiin dadka caalamka ku nool ka mida gaajo haddii dib loogu laabtay tiri dagaalka Iiraan. malaayiin qof ayaa gaajo iyo dhibaato ay la soo darsi doontaa haddii dib loogu laabto dagaalka Iiraan ayay leedahay. waayahay wakaaladda wararka ee Reuters iyaduna goordhow waxay qortay warbixin ay leedahay Trump wuxuu soo jeediyey in cunaqabataynta lagu sii hayo Iiraan ilaa marka ugu dambeeya ay heshiis ka saxeexayso. taas marka waxay ka dhigantaa la leeyahay Trump inay ku adkaatay dagaal toosa inuu la galo Iiraan. waxa uu isku maaweelinayo waa cunaqabataynaan ku hayaa inay heshiis saxeexdo. waayo cunaqabatayntuna dee waa midaan ka hadlaynay ee warbaahinta Mareykanka ay sheegayeen maanta oo maraakiibta qaar maba lala hadlaba calanka Iiraan ha wateen ama aysan wadan way iska gudbaan. marka sheekadaas iyaduna wararkaas ayaa soo kordhay qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka. intaanu barnaamijka wadnay ayay ku kulmayno.